ودلا يراهدو أمين محمد oo ah la taliyaha madaxweyne Mustafa Maxamed Umar isla marhaantaana madaxa guud ee borotokoolka madaxtooyada waanu jeclaynaa inaan wax ka weydiino dagaalka TPLF lagula jira meesha uu marayo dabadeedna aanu u soo daadegna deegaanka iyo siyaasadda ka jirta hadday ahaan lahayd dhinaca awood qaybsiga hadday ahaan lahayd waxqabadka iyo horumarka waxaanu dul istaagi doonaa sidoo kale eedeymo loo soo jeedinayay in dowladda madaxweyne Mustafa ay hoosta ku wadato ama xaarada maxaa ka jira eedeymahaas ayaanu dul istaagi doonaa dadkii ka dambeeyay tacadiyadii iyo dhibaatadii ka dhacday jeel ogaadeen maxaa laga yeelaya su'aalahaas iyo kuwo kale ayaanu hordhigi doonaa mas'uulkan haddaba waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan Amiin Maxamed oo si toos ah khadka magaala madaxda Soomaali galbeed jigjiga uga jira Maxamed sharaf bay noo tahay inaad naga aqbashid waqtigaaga na siisid ummadda Soomaaliyeed ee ku xiran barnaamijkan Efiya 22 iyo guud ahaan Brit Somali TV ba aad warbixintan siisid soo dhawow aad baad u mahadsantahay Cabdi Xaafid waan dhawahay waxaan halkan ka salaamayaa adiga teamkaaga iyo daawadayaasha Brit Somali TV meel walba adduunka ka joogaanba waxay maxamed waanu ka aqbalnaa waana kaaga mahad celinaynaa waxaan jeclaynaa marka horeyso wax ka weydiiyo xaaladda amniga waa sida TPLF iyo dagaalka lagula jiro xaggu maraya idinka ka dawlad ahaansa maxaa idin qorshaysan waad mahadsantahay Cabdi Xaafid amnigu waa waxa ugu muhiimsan maanta asalka oo tiirka oo ah dadka Soomaaliyeed marka hore waxaan ka bilaabayaa deegaanka Soomaalida sidaad u ogtahay 3 sano iyo intii aanu joognay isbedelku dhacay waa meesha ugu ammaan badan Ethiopia deegaankeegu wax dhiba oo ka jira ma jiro magaalada Jigjiga Addis-Ababa maalin walba waxa ka taga 8 ilaa 9 diyaaradood baa ka shaqeeya waa meelaha maanta Ethiopia oo dhan loogu yimaado in shirarka lagu qabsado trainingyada lagu qabsado maanta ugu dambeysay 3 wafdi baanu ku qaabilnay oo noo yimid mid uu kamid yahay Takla Umma oo wasiirkii macdanta ahaa directorka presidentga Dashin Bank iyo wufuud fara badan oo bari xusla qabanaya oo ilaa 6-7 wasiir aan la jooga marka deegaanka Soomaalidu aad buu ammaankiisu u wanaagsan yahay alxamdulillah Ethiopia sidaad ogtahay xagga Northka dagaal ka socday dagaal waa dagaal oo maaragtay waa la isriixriixi TPLF2 waayahan dambe waa tii ay magaalooyin qabsadeen warka ugu dambeeyay goordhaweyd soo dhacayay Kombolcha iyo Kamise baa laga qabsaday dib bay u noqdeen dib baa loo celiyay dad fara badan oo aad moodeysay in ay intay soo lugeeyaan Addis-Ababa imanayaan oo sacab lagu soo dhaweynayo way ku hingoobeen waanan ka xumahay dadka Soomaaliyeed ee maanta taageera iyo hiil ka filaya TPLF in kursi ku soo celiso aad baan uga xumahay TPLF waa tii dhibka dadka Soomaaliyeed gaarsiisay dadka Ethiopia gaarsiisay dhibaatooyinka ay soo gaarsiiyeen mid la iloobi kara ma aha waanan kaga hadli doonaa barnaamijka marka dagaalkaasi waa mid hadda dib loogu riixayo ay ku baxayaan weeye marka qaarkood waxaan maqlaa warar oranaya Addis-Ababa ay qarka u saaran yihiin dawladda Abiy Ahmed waa la afgambinaya waxaad leedahay waxyaalahaas waxba kama jiraan oo xaaladdu saa oo ka duwanta maya wax ka jira ma jiro dagaalka waxa uu soo jirsadeen 250-300 kilometer waa dagaal dagaal waa la isku riixi laakiin waxa dagaalamaya waa qoomiyad yar Ethiopia oo dhan weeye waxa dagaalamaya qoomiyadani waa tii aad ogeyd 30 sano haysatay wadanka dadka Soomaaliyeed say u galeen waa wax marxaati loo yahay jeel ogaadeen gabdhihii ay kusadeen dadkii ay dileen waa wax shalay ahaa oo hadda aan la iloobi karaynin weeye marka xuquuqihii aynu lahayn aan basic u lahayn dadkii noo diiday weeye baarlamaanka markii ay dhisayeen Soomaalidu iyaga way ka tire badnaayeen iyaga qaatay 38 qaatay Soomaalidana waxay siiyeen 20 bay siiyeen marka dadka iyaga maanta in qof Soomaali kuba hamiyaba inay intay dib u soo noqdaan ay qabsadaan suuragal maaha waxyaalo fara badan oo reason ay suuragal ku noqonayninba inay yimaadaan 91dii waxyaalihii uu ogolaanayay maanta ma yaalo dagaalku hadda waa mid qoomiyadeed iyo qoomiyado fara badan ay kamid yihiin kii hore uu ka dugan yahay kan waagaana dawladda markaa joogta aad loo necba hadda iyaga la necab yahay marka soo galitaankaasi mid dhacaya ilama aha aniga aragtidayda haddana dib baa loo celiyay saan kuu sheegay Kombolcha baa laga qabsadayba
waayahay waxaan eegi doonaa arrimaha jeel ogaadeenaya aad ka dhawaajisay kufsi wadareeskii dhibaatadii dhacday gaar ayaan u eegi doonaa qaybaha dambe barnaamijka waxaan jeclahay marka hore inaan intaa wax kaa weydiiya hadal aad iminka dhawaajiso oo leedahay dad Soomaaliya ayaa doonaya TPLF inay dib u soo noqoto u ololeynaya dadka Soomaaliyeed ee doonaya TPLF inay soo noqoto ayadoo la og yahay saad sheegtay iyo dad fara badan oo ka horreeyay ay sheegeen madaxweyne Mustafa oo dhowr jeer sheegay tacadiyadii iyo dhibaatada ay geysteen waa sida hadalka u dhigteen maxaa ku kalifaya shaqsi Soomaaliyeed inay soo noqoto dantu ka dhac arkaa waa maxay والله وسؤال ونعكسن سؤالها السي عبد الحافظ رنتي dadka sheeganaya aad arkaysa maalinka dhaweyd Washington DC kula mayay teamkii magaca la baxayay kuwa kale fara badan oo isqarinayo ururo aan sumad lahayn hadda ilaa shalay Nairobi ka sheegaya oo TPLF ku xidhan baa jira ma garan karo waxa jira dadku way isku qaban karaa kursiga dadka qaarkii oo fara badan oo anaku isku team ahayn oo xaalad badan dhaliil ayaa jira waa sax waa xorbe u yihiin dadkaasi laakiin maanta inay TPLF ka raadsadaan taageero waa waxa aad looga xumaado haddii kursigu qof walba uu bannaan yahay madaxweynaha waa la challenge gareyn karaa hadduu dhaliil leeyahayna xilli ka dugan baynu joognaa oo democratica ay ka hadli karaan doorashooyin baa la soo galay marka systemyo ka dugan baa jira oo kursiga la isku challenge gareyn karo laakiin in TPLF taageero laga doonto waxaan garan kara maaha shakhsiyan waayahay haddii aanu arrinta halka uga baxno oo aanu ka hadalno xisbiga haatan jira barwaaqo iyo kii hore ee TPLF iyo Cabdi Ilay ay hoggaanka u hayeen marka deegaanka la eego markaad isbarbar dhigtid maxaad leedahay way ku kala duwan yihiin oo ugu waaweyn oo farqi ahaan ay ku kala duwan yihiin dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba amniga labada xisbi waxay ku kala duwan yihiin representationka waa ka aad bay ugu kala duwan yihiin matalan xisbigii hore EPRDF waxa la oran jiray Soomaalida iyo Anfarta iyo qoomiyadaha kale xabashiga waxa lagu yiraahdaa agaar oo aan ahayn fully dad kamida laakiin kuwii taageerayay ama support gareynayay buu ahaa hadda xisbigan qolo walba qoomiyad walba tira ka go'an bay ku joogtaa miiskana waa la wada joogaa dhammaan way wada joogaan waa lagu labada xisbi ay ku kala duwan yihiin waxa kale oo actually ay ku kala duwan yihiin xisbigan intuu hadda yimid laba autonomous regions baa ku soo kordhay Sidaama hadda soo kordhay intay xisbigan u joogay Southwest labaduba ay ka go'een shucuubta koonfureed hadda iyaguba soo kordheen intii ay qolada kala joogeen wax ku soo kordhay ma jirin intay iyagu ku design gareeyeen baa lagu joogay afar oo qowmiyadood oo Oromada Amxaarada Tigreega iyo Dabuub oo Southern nations oo isku jira oo iyagu kuwa lahaa iyo kuwa kale oo taageerayaal ahaa baa lagu joogay taa hadda way ka dugan tahay oo waa tan aynu arkayno waxa jira dad dhaliilaya oo xisbigan hadda dhaliilaya oo afkaar wuxuu wataa central government-ga inay xoojiyaan annaka ilaa hadda nooma muuqdo ma aragno sidaan kugu idhina intay joogeen laba qowmiyadood oo cusub baaba ku soo kordhay oo ka soo baxay marka ilaa hadda wax dhib oo annaka dadka Soomaaliyeed la soo gaarsiiyay ma jiro nabad baan ku jirnaa kii hore dib ku gaarsiiyay taageerada bixiyeen xisbiga wadanka u talinaya kaligii Muuse Naan Cabdi Ilay waxa taageerayay kaas waxa marka farqiyadaas oo dhan buu leeyahay marka waxaan u arkaa laba xisbi oo aad u kala fogoon la isbarbar dhigi kareen waayahay waxa la idinku eedeynayaa waad noogtahay haddaad horey la socono haddina wataan jeclaha Brit Somali TV waxaan aad u soo dhaweynaa fursadna inaan siina jecelnahay dadka dhaliilaya ee dhaliilaha markaa wax lagu saxayo u soo jeedsha guud ahaan siyaasiyiinta Soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogaan iyadoo loo kala aabayeelaynin waxaa la idinku eedeynayaa in aad iyo aad ugu dhowdihiin u dhagan nugushihiinna amxaarada oo aad hoosta ku wadataan amxaarada oo Soomaalidu ay u taqaano dad cadowgooda ah amxaarada iyo idinka maxaa idinka dhaxeeya idinka iyo Mustafa iyo amxaarada maxaa ka dhaxeeya siyaasiyiinta deegaanka iyo amxaarada maxaa ka dhaxeeya bal arrintaa ka garno maxaa la idinku eedeynaya waxa weeye sidaad u sheegtay magaca isaga amxaarada dadka Soomaaliyeed sasbay ka qabaan historically dad marginalized gareeyo dhulkan qabsaday weeye sida awgi horta bay propaganda u socdaa waa narrative la abuurayo wadanka sida aad ula socotid adna aad ku bilowday ra'iisul wasaare Abiy baa haysta oo prime minister ka uma dhalanin qoomiyadaas
waa qomiyadda ballaaran ee oromadu u dhashay marka prime minister kumaaha yes prime minister ku xogeen ku weeyay dadkani waa dad Ethiopian oo qomiyadda labaad wayna joogaan oo bureaucracy iyo meel walba way joogaan laakiin haba yaraatee wax xidhiidh oo ka dugan shucuubta Ethiopia kala dugan ka jira ma jiro naga dhaxeeya waa dad Ethiopian annaguna dad Ethiopian aanu nahay waan qirayaa inay dhibaatooyin hore historical ay jireen oo magaca la xidhiidha laakiin maanta nimanka dadka awoodda actualka haysta iyaga ma aha dadkaanu la dhiilgareynaynaa bahardhaar ma aha marka waa dad uun mucaarada doonaya dadka Soomaaliyeed inay u tusaan maadaama oo dadka Soomaaliyeed sas ka qabaan magaca ay taasina gartahay oo taariikha loo raacay ay tahay laakiin Haile Selassie baa ugu dambeeyay hatta Mengistu Haile Mariam ha hado central government nin aad u xoojinayay qomiyadiisu muusanayna maxaa 30 sano waxa haystay Tigray marka intii ka horeysay bay nimankaasi joogeen waa run dhulka iyaga waaga xoog ku qabsaday oo dhulkan iyo shucuubta koonfurta way qabteen marka waxaan u maleynayaa dadka narrative-ka abuuraya durbaanka waa maxaara aad ugu celcelinayay xagaasay maaragtay doonayaan inay dadka Soomaaliyeed ay sas ka qaadaan waxaba yaraatee gooni oo aan ahayn wax qomiyadaha oo dhan Ethiopia oo dhan isu kaya keenaya ma ahayn wax gooni oo iyaga naga dhaxeeya ay ma jiro marka dan gaar ah idinka ka dhaxaysa ma laha wad leedahay dadkan idin eedeynaya idinka soo horjeeda way iska hadlayaan wax cadeyna ma hayaan mise arrintu intaa way ka weynto waxaad naga qarinaysaan baa jira ما جرو وحبا يراتي ما جرو لغة محارقو واللغة official كودا كلاجا هذا يوم مركز سنتر كلا يسوق تجو اللغة محارقة واللغة هذي ميديا وفربضين بيلي هنا انترفيا لجاجا قاعدة اللغة محارقة ضد كي يقعنا ويكون بحيان متحولين من اللغة محارقة بو يقعنا أنا قلنا تجيجوا محارقة وحكو برتوانا قعنا مركز ضد كما أنت تشوجا دلنتي وضد وحكو برتوانا يقعنا اللغة لها اللغة هذا قاربا اللغة لها أروما وسيدري هاي قاربا كعنفرتو دري هاي marka way dhici kartaa in de luqadaha marka la joogo in lagu hadlayo laakiin wax inta dhaafsiisan oo ka dugan shucuubaha kale Ethiopia oo xidhiidha ma jiro way haddaan arrimaha ka soo tagno dabcan daawadayaasha ayaan u deenaynaa inay ra'yigooda hoos ku falanqeeyaan oo nala wadaagaan siday u arkaan jawaabahagan haddii ahaan lahayn kuwii in ka soo horjeeday haddii ahaan lahayn kuwa idin taageersanba waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo kale عدم مدحوين مصطفى كان ديب مركل الله دورتي دولة عصبة على صور السي نظام عصبة الصعدة وحياله إذين قبصمي مركز اكتد لابا إلا صدح وحا هو نوشك انت عركو يدينين وحا إذين قبصمي وهي يعقبضين كورتا ينب horta waxa ugu muhiimsan ee ka qabsan dadkan ugu muhiimsan ee deegaanka jooga waa nabadda la haysto dadkan muddo 70 sano wax nabad ah oo haba yaraatee ma jirin markaanu yareynayno ardayda ahayn convoy baa lagu gudbi jiray magaalooyinka maanta laga soo qadeeyo waa loo dhixi jiray ciidan haduuna ku wadin meel lama tagi karin intii ka dambeysay jabhadihii ka dagaalamayay ka dhiidhiyay dhibaatooyinka ka jiray iyo dawladdu dagaalada ay ku jireen waa taadagooda nabad darro xoog leh abuureen wixii uu soo gabagabay marka waxa ugu muhiimsan ee maanta u qabsoomay dadka waa nabadda waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay nabadooda ilaashadaan oo wixii isxaq xagitaan ee politics-ka ku saabsan siyaasadda waa meesheeda laakiin nabaddu waa wax qaali ah waa wax saddexdaas sano aynu aragnay qof walba oo meel walba uu joogo oo u dhashay deegaanka iyo dadka Soomaaliyeedba way yimaadeen oo way nala joogaan maanta Jijiga Goday dhagax buur qabri dahar rafiiq meel walba way joogaan marka taasi waa kow waxa kale oo noo qabsoomay مشاريع فربضان أنا هذا حال كان كوسو كوبي كرين أو عافمات أو إسكولات أو تشيدات وحالة فربضان بحاجة أنا كقب صومي مشاريع هاي سبضان ضد صوماليات باقبتها أول هوري مركو وشوجي مدحوينيه كتجي عبد محمد وحسين شري ضد ككله تقريبا قادن شري مثال يربان كوسينا يا وهذا تشيجا بيه هذا wuxuu ku bixiyay 320 milyan oo bir oo xilliga jooga bunnin Tigray ku siiyay kulana tagay waxa yaraatay ka qabsoomay ma jiro hadda malaayiin loo qabtay amino dollar marka la qiyaaso waa maxay walaal xilliga aan ka hadlayno dollarku aad buu yara maanta dollarku kor buu tagay 60 iyo 65 ba maanta lagu sarrifay xilliga aan ka hadlayo 20 lagu sarrifay marka waa wax aad u fara badan oo maskaxda ayna qiyaasaynin waa recorded waa documented
nin baa la iska siiyey aan u dhalanin deegaanka oon wax laga haynin advance baa lagu siiyey uu kula tegey kaasi mashruuc koobaad maaha waa mashaariic carrada ka badan waxaa noo qabsamay marka inaynay jirin mashaariic intii la bixiyey dad kale qoomiyad kale la siiyey dad Soomaaliyeed baa wada qaatay ka shaqeeya marka laga tago kambaniyaasha waaweyn ee mashaariicaha waaweyn fulin kara ee jidadka waaweyn fulin kara oo iyagu de ku soo tartama ilaa 15 mashruuc oo jidada bay dawladda federaalku ka sameynaysaa ka iyaga bixiya intiisa badan Chinese bay siiyeen oo sameynaya marka waxyaalo fara badan oo baa noo qabsamay xagga horumarka iyo xagga nabadda waan aaminsanahay waayahay wax qabadkii waad ka sheekaysay wax idin qabsoomay waxyaalaha idin qabsoomi waaye ama caqabadaha idin hortaagan ama aad ka gaabiseen haddaan si kale u iraahdo maxaad nooga sheegi kartaa ayad si guud marka hore baan caqabadaha challenge-ga ka jira deegaanka in yar ka yar waramo deegaanku wuxuu ku depend ku yahay deegaanka oo dhan dawladda marka entity-ga business-ka ay dadka Soomaaliyeed ay wadanada hadda jaararka aanu nahay booming-ga ka dawladda aad aan looguma tiirsano dadku waa dad ganacsataa ganacsiguna iyaga dadka hayr gareeyo oo ay u shaqeeyaan ka xagga iyaga kama jiro dadka ganacsatada ah ee joogay oo dhani waxay moodaa inay ku xidhan yihiin qandaraas dawladda laga qaato marka waa caqabad aad u weyn kaasi wuxuu ka imanayaa inaadan sector walba dawladdu ma gaari karto oo wax kama qaban karto waxbarashadii caafimaadkii meelaha kale meeshii private citizens ay ka qaban lahaayeen deegaankeenna kama jiro kaasi waa caqabad koobaad oo aan ugu nimid caqabadda labaad waxaan odhan kalaa xagga nidaamka deegaanka ah waa dhibaato dawladdii hore ay tagtay dadka si laysugu duro villageization fara badan bay samaysay oo dadka meel walba reer inuu yeesho oo qabale walba oo meesha ugu hooste qabaleegu waa sectorka ugu hooste village-ka ah weeye in reer la siiyo oo meesha marka dadka laysugu keeno taasi waxay caqabad ka noqotay waa kow nabadgelyada waxay ka noqotay horumarkii meel 50 kilomitir u jira oo isu jira baa waxa ku yaala labada magaalo ee 50 isu jira ilaa 6-7 tuulo oo waaweyn oo ka raba inaad biyihii gaarsiisid waxbarashadii gaarsiisid caafimaadkii gaarsiisid waana 50 kilomitir oo waxa dhici karta inta maalinkii subaxii meesha aad joogtid shaqada inta aad u tagtid inay 50 kilomitir ka badan tahay bay u badan tahay marka labadaas horta waxaan isleeyahay waa caqabadooyin waaweyn oo yaalo deegaanku inuu ka shaqeeyo loo baahan yahay waxyaalaha noo qabsoomin wax walba lama qaban karo transition baan soo intaad u gudbo waxa idin qabsoomay maxaa dawladda adiga iyo team madaxweyne Mustafa uu hogaaminayo maxaa idin kaga qorshaysan caqabadahaas inaad kaga leexisaan dadka aad u adeegaysaan ee kuraasta idinku doortay waa sax weeye wuxuu u baahan yahay plan runtii qorshe dheer qorshahan hadda aan kuu sheegayo ee qabalayaasha villageization-ka deegaanku waa 93 degmo waa deegaan aad u weyn xuduuda la leh Kenya Soomaaliya Somaliland Puntland Djibouti waad garan kartaa intuu dhulkaasi baaxad leeyahay marka meel walba markay isu yimaadaan oo dad la isu keeno oo laga rabo inaad dawlad aad u provide gareysid uu dib badan yahay qasabna horey baa loo soo arko inta dad la raro meel kale lama geyn karo marka waxay la tahay oo wali laga hadlaya oo laga discuss gareynaya war sidee urbanization loo sameeyaa sidee magaalooyinka waaweyn loo xoojiyaa siday dadku isugu yimaadaan oo shaqo uga helaan oo caafimaadkii iyo servicekii asaasiga ahaa ay uga heli lahaayeen marka waxyaalahaasi waa in discussion runtii in laga soo saaro u baahan programyo aware baa laga yahay programkii laakiin sidaad ula socotidba transition baan ka soo baxnay doorashaan ka soo baxnay haddana dagaalkii baa north ka socda oo dhaqaalaha saameynaya laakiin waa waxaynu aware ka nahay una baahan waan kugu raacsiisnaa in qorshe cad laga keeno waaya haddii aanu ka eegno dhinaca kale waxaad tihiin dadkiinan Soomaalida oo deegaankaas ku nool saad sheegtay xuduudyo fara badan dad kale leh muhiimad intee ayay leedahay danta guud siyaasiyiintiinu inaad mid ka noqotaan hadday ahaan lahaayeen OLNF hadday ahaan lahayd hadday idinka ahaan lahaydeen laakiin siyaasadda iyo kursiga iyo loolanku uu sidiisa ahaado aan la isku asxaan falinin oo ciddii siyaasad wanaagsanaata ay xukunka ku guulaysato dadkuna ay raalli ka yihiin laakiin danta guud aad leedihiin oo ah ummado fara badan baa geesaha idinka xigoon Soomaali ahayn
inaad is arursataan danta guud aad meel uga soo wada jeestaan idinka oo muxaafid iyo mucaarad bal muhiimad intee laga arrintaas u leeda ama siinaysa muhiimad aad iyo aad u weyn bay leedahay arrintaasi waa arrin aad iyo aad iyo aad muhiim u ah waataan ku bilaabay oo la yaabka ila ah in maanta wax laga doonto taageero TPLF dadka markaan ku arkay waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed siyaasiyiin iyo shacabba in muwaafaqadu ay muhiim tahay dhaqan waxa ka jiray oo aan hadda aan lagu guuleystay oo tiimku iyo madaxweynuhu ku guuleystay waagii hore waxa is eryar jiray siyaasiyiinta ku jira dawladda oo guddiga fulinta ku jira kuwa jooga federaalka oo loo kala warwarami jira oo ninba nin u tagi jiray kaasi uu dhamaaday waa dad midaysan wada shaqeynaya markaanu as a team adsaba u tagno dadka federaalka naga matalay maalinkaaba way isu yimaadaan way isbrief gareeyaan si wanaagsan baa loo wada shaqeeyaa marka waa team aad iyo aad u wanaagsan siyaasiyiinta sida jabhadda qaybta Cabdiraxmaan wali sidii aan rabnay maaha laakiin dadaallo fara badan baanu xaggayga kolle ka samaynaynaa sidii la isugu yimaado ifart fara badan oo dadka shacabkuna ay samaynayaan wuu jira shakhsiyan waxaan siinayaa muhiimad aad iyo aad u weyn in muwaafaqo la helo oo dadka Soomaaliyeed waxa iyaga u gaarka ah iyo danta guud ay kala gartaan iyo siyaasadda maaragtay la isku riixayo marka ka inaynu kala garanno oo aanu wixii guudna wada ilaashano de wixii siyaasadana waa siyaasad weeye sidaad u sheegtay waa la isku riixaya waayahay arrinta ugu xasaasisan oo jeclayna wax ka weydiiyo waxay tahay tiimkii hore ee jeel ogaadeen tacadiyadii kuftigii haatan oo sheegaysid in hantidii ummadda loogu adeegi lahaa Tigray iyo dad qalaad la siiyay ummadii xaq u lahaydna ay ka oomanayd ama laga cuna qabateeyay waa sa hadalka u dhigtay maxaa idinkaga qorshaysan tiimkii hore ee dhibaatada intaa laga haystay ee aanu ogeyn cadaab yar ah in la keenay jeel ogaadeen ay ahayd cadaab yar ah rag iyo dumarba lagu xasuuqay laguna baabi'iyey wasaxay hada arrintaasi dhowr nooc weeye horta dadka qaarkii way xidhan yihiin oo kii ugu weynaa iyo kuwii la socday xabsi bay ku jiraan dadka qaarkii attorney generalka federaalku wuxuu u jaray in la soo xidho dad la soo xidho iyo dad la raadinayaba way ku jiraan council baan doonaynay arrintan baadha oo soo saara oo sameeya waa la bilaabay laakiin lama dhamaystirin oo waxyaalahan isleeyahay waad ka gaabiseen buu ka mid yahay sidii loo document gareeyo tacaddigii ka dhacay gobolka iyo waddanka sidii dadka ay ugu noqoto taariikh naftigeedu dadka inta badan hal la heshiiye marka la leeyahay waxay u qaataan oo in tacadiyada ay dadkii soo qaatay inay joogaan oo reconciliation buu u baahan yahay ka naftigiisu process gooni uu leeyahay marka la document gareeyo leen qofka la iskama eedeynayo oo wixii cadaado ba reconciliation iyo heshiisku uu noqonayo in marka ka waan ka gaabinay baan isleeyahay wuu bilaabmay laakiin sidii aanu rabnay umuna midha dhalin waxaana keenay waxyaalo fara badan oo waxyaalahan hadda aan ku sheegay transitionkii iyo doorashooyinkii iyo haddana dagaaladan iyo waxana keenaya waxaan aaminsanahay in dib loogu noqon oo documentationka la adkeen oo councilka dib loo yagleeli oo dib loo eegi dadkuna marka reconciliation siday u helaan oo nabad loo helo laakiin wadan qofkii victimka ahaa iyo key perpetratorka ay wada joogaan de nabad si dhib yar looma helayo waayahay waxa kaloo jiro soo noqnoqda inta badan awood qaybsiga saami qaybsiga hadday ahaan lahayd dhaqaale iyo hadday siyaasad ahaan lahayd qoysas badan baa halkan dega inta badan waxaan aragnaa shakhsiyaad iyo qoysas markaas ayagu leh xaqeenii maanaan helin maxaad ku xaqiijinaysaan in bahashu ay noqoto mid la isla wadaago oo cid walba ay xoogaageeda hayso si aysan u dhicinin dad markaa xaqoodii waaya hadhowtana dhibaato iyo colaad waxaas ay abuuraan wallahi marka xagga diversityga la eego dowladdani waa dowladda ugu diversi garaysan weeye waa sax weeye wax badan baa la sheeganaya dad Soomaaliyeed baa leeyahay ka haysta iyo kaan haysanin naftigeedu isku si unbay u leeyihiin ka haystaana wuxuu leeyahay inta in ka badan baan haystay kaan haysanin maba haystaba de wuxuu leeyahay ma meeshaasi nooma qalanto meesha ku xigta waxaan qabaa shakhsiyan in ka laga gudbo oo dadku merita uu noqdo baarlamaanku uu yahay ka representationka dhabta ah ee dadka Soomaaliyeed ay ku soo galayaan
executive-ku waa sax weeye dad Soomaaliyeed baan mar raba lagama tagayo laakiin inuu purely reer noqdo waxaan qabaa inuu dhibkeeda keenayo marka in dadka ay shaqeeya aqoonta leh ee lagu aaminsan yahay inay hawsha qabanayaan loo hormariyo waxaan aaminsanahay inuu very diverse yahay arrintaasi waa arrin mar walba jiraysa u noqon mayso eed kan madaxweynaha maanta jooga madaxweyne walba iman doona qolomba wax taban doonta saan kugu idina maaha ma haysane uu nagu yar yahay iyo in ka badan baanu haysan jirnay historically iyo waxyaalaha lamid oo fara badanba waad maqli marka waxaan qabaa inuu yahay the most diverse cabinet xagga genderka iyo xagga clan kaba marka loo eego marka inaan dadaalay baan aaminsanahay waayahay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo dad waxaa jira idin dhaliila oo qaarkood dabadda ay joogaan oo qoraallo idinka qora dadkaas inay dib deegaanka ugu soo noqdaan oo ayagoo xor ah haddana laydin dhaliilo saxaafaddu ay xor noqoto oon la caburinin raalli ma ka tihiin mise sidii tiimkii hore qofkii wax idinka sheegaba waxaa leeyahay jal ogaaden baa ku yaqaana iyo meel kalaa ku taqaana والله ده wax noo xidhan oo maanta siyaasiya ma jiro runta qof maanta siyaasad u xidhani ma jiro dadka horta xabsiyada dawlad marka la yahay qofku sharci la soo maanta hadda emergency waan ku jirnaa qofkii jabiya maanta shir qabsaday waa la xidhay wax siyaasada kaasi shaqo kuma la siyaasi maaha shirha qabsanina la yidhi wadanko dhan ba emergency ku jira waa inaad notify garaysata shuruuc buu leeyahay marka wixii arrimaha la saleeyo qofku inuu sharci jabiya waa la xidha waana de processku soo maraa waa la soo sii daaya maanta wax siyaasi oo noo xidhan ma jiro taasi waxay caddayn ku tahay inuu xor yahay dadkana dhaliila intooda badan ee wax qorayna gudahayba joogaanba marka kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga waa dad xora waa wadankoodii waxaalahan islahayn markaanu ku haminaynay inaanu hawlahan qabano oo markayaan banaanka joogna wax qoraynay waxaalahan diidaynay baa kuwan ahaa marka ma samaynayno annagu taasi micneedu ma aha qof crime gala iyo qof dembi gala iyo lama xidhayo ma aha xabsigu waa la xidhi qofku process ma la mariyey due process ma jira si sharaf lama loo treat gareeyey kuwaasaa la isweydiinayaa maaha in qof maxaa loo xidhay su'aal ma noqonayo sababtoo crime hadduuna commit garaynin qofka lama qabanayo sidaan kugu idhina siyaasiya baynu noqonayn maanta saxaafaddu inay xor noqoto oo meel walba tagto oo ay soo ribood garayso ceebihiina ay bannaanka soo dhigtay waxa ka gaabiseen ka warrayada waa sax weeye waaba democratic institution ka saan baaba lagu build garayn karaa marka waa inay saxaafaddu xor noqoto la isdhaliilo oo iyadoo de ethicsigii la ilaalinayo marka ethiga aan laga bixin oon kicin ayna noqonin oon ayna noqonin wixii ka xayirnaa saxaafadda absolutely waa inay saa noqoto weeye waayahay أمين وأكون مهد عليا وحوها داودي داونيسين أمين محمد وآه تشيف بروتوكول كمان حتو يدا سلام رحمت أنا أهل التليها مدحوينها للتليها جاركا مدحوين مصطف وأنو توس وريسين أسوق الجوجا مقالة مدح جيجيجا أنو كوريسين حارد وماشي أي مريسو حنسكو دينا إنو وريسونو ضد يوكا لدوان سدد كاسو مالي هالكا جوجا آياتين كودا يقول تشتان أيغو اسكو دوبان oo ayaga dhexdooda ay dhibaato iyo qalalaasi iyo dhiig daata iyo jeel ogaadeen iyo caburin iyo xabsi iyo anagoo reebala aanu sad bursana aysan uga dhicinin wixii horeyna dersi loogaga barto aad baan ugu mahad celinayaa amiin waa boqolkiiba boqol waqtigiisa uuna siiyey qaaliga iyadoo naga yeelo waraysigan oo muddo dheer aanu daba soconnay inuu mar un soo hor fadhiistay barnaamijka ifiya 22 weli cabdifaax shirwac ayaa idiin soo saaray idinka ayaa daawanayay intaanu dib ku kulmi doono ballankeenu waxa weeye guul iyo gobonnimo iyo horumar inaan ka wada shaqeyno waa mahadsantii